runtii qof walbaba wada ayuu soo jaraa wadadaas markii aad ku soo jarayso qodaxaanta dhibka rafaadka cid kula dareemaysa ma lahan laakiin maalintii adiga ay soo saarto ummadda oo dhan ictiraaf ay ku siinaysaa in qof walbaba waxbarashada qof walba cayaar ama dhidheel aan laga soo baran karin runtii noloshu waa iska challenges maalin sidoo kale waxaa aniga wiil jar lahayn iskuul ka soo lugeynay iskuulku waa bacaad xaafad yar oo fog magaalada Muqdisho ka tirsan oo agaaraan siimaday u dhawaan degnay dhulka la soo jaraayo masaafado aad u fog bacaad ah waay runtii qof walbana bacaadkaadu kulliya wiil jar ma haystid waan soo lugay waxaas marso waa xiliyada Soomaaliya oo kulushay qorraxdu naxbartan ku aadan tahay imagine marka dhul bacaad aad ku socoto qof walbana qofka dhulka kaga dhow yahay qorraxdu way ka qaba og tahay way ka qabanay qof kale kor qabanaysa qorraxdan ku soo guurtay bacaadka indhaha qabtay ilaa adeena qatiina ku miir dabal qorraxdaas ayaa asxaabteeda ay soo wadeen ikeenin why are all these challenges soo maraya inaan nolosheeda waxbarasho tusiyo adigoo challenges soo marin hadii aad ka waran noloshaada si fiican wax u baran weyso waxa tahay qof is khasaaray waxa tahay qof nolosha ka dhacay waxa tahay qof aan marna dareemi karin nolosha waxbarashadu tahay waxbarashadu waxa la like education sida aad ugu baahan tahay cuntada dharkaaga labiska biyaha same like that ay u baahan tahay waxbarashada inaad u barato walaalka Masar aad u joogo miyaad u maleynaysaa in adiga go'aan kale uga soo laabanayo asiga ayaa la aadaya maxaa loo aaday waxa la hebela aqoon oo guriga inoo joogay bal go'aanka xaafadda ha inoo gaaro waa aad lagu dooranin waa ka soo dooranaya waxay tahay waxbarashadu waxay ku cadeynaysaa inay u tahay mid ugu muhiimsan doorka runtii wax kale waxa la disability education inclusive oo ayna meeshaan message gaar ah oo aan wata aan ku gudbisto adduunkan waxa lagu sheegaa dadka naafadnimada la loon World Bank statistics oo sameeyay waa 15% boqolkiiba dadka naafada ah ee dunida maanta ku nool dhawaan daraad ribodan akhrinaya wuxuu dhahay adduunka in ku dhow 500,000 ayaa waxaan haysan waxbarasho caruur ah 500,000 kaas 60% kamid ah waxa waa ciyaal caruur naafa ah oo waxbarashadii ka haray runtii maybe inaad halkan ku aragtaan ama aad family ama qaraabo aad latiin in qof walba oo naafa aragtaan aad ku dhiirigelisaan waxbarashada u sheegtaan inay tahay maybe marka aragto aad milicsato qof naafa inaad sorry because of waxa la ina af Soomaali wax lagu sheego ama one picture ka wuxuu ku xog badaya ku words ii qaado as life ii qaado adigoo arkaya ii arag in qof walba uu noloshu same purpose leeyahay same challenge same obstacles wax walba oo si toos ah u soo wada marayaan laakiin qofka ka kul gaari kara uu yahay qofka samra waxaan rabaa sidoo kale in halkaan idinku sheego jaamacadu marka aad tagtaan waxaan dhamaanteen ku fikirnaa marka jaamacada dhameeyo maybe 22 ina jaamacada ku birto tuuto marka jaamacada ku birta dhahdo aniga marka jaamacada dhameeyo shaqo ma helayo waa aan dadaalaya waxa arkaysaa leedahay asxaab badan oo aniga horeysay jaamacadaha dhameeyeen aan waxba shaqo ah helin sidee u doonaysaa in laga soo dhaxusho 1 milyan oo shaqo la'aan ah adiga oo aan dadaalkii loo baahnaa bixinin sidee suurtagal noqonaysaa education kuma aan wax gaarantada ama damiin loo qaato laakiin waxa ku xiran dadaalkaaga inta habeenay aad rafarto inta habeenay aad soo jeedo si hadhood wax u hesho ictiraaf bulshada u hesho markii aad adiga dhameeyso si aad shaqo u raadin ee adiga lagu soo raadsan la imaan maanta dadaalkeeda waad la imaan kartaa